gabdhaheena iyo wiilashana yarna ay ka ganacsadaan hadda bilaabanaysaa waa November 29 2019 waa jimcihii la soo dhaafay hadda 29 bishii 11aad ee sanadkan hadda aan dhammaan gabagabada ah subax hore aroor ayay ahayd subax jimco ah salaada subax ayaan u soo kacay waqti hore anigoo isku diyaarinaya salaadii waxa aad ii wareeriyay telefoon la iga soo wacayo Snapchat call ayaa la igu soo wacay muddo 20 jeer ayuu qofkii ku soo ceshay mar walba ku damiyo ama aan ka qaban buu ku soo celinayaa fartiin ayaan u qoray markuu qofkii telefoonka joojin waayo waxaan ku eray ama cod ii dhaaf ama fartiin ii soo qor hadhow baan kugu soo celinayaa waxaan ahay mashquul daqiiqad kama soo raagin markuu uu qofkii ii soo qoray qoraalka halkan inay ka muuqda waana sida uu qoraalkiisa ku bilaabay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa ku salaameynaa walaashay waxa tahay gabar firfircoon dad badanna ay ku xiran yihiin runtii waxa tahay qof wax badan qaban kartaa bulshadana waxyaabo badan u gudbin kartaa waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad u fiican aad ku sameyn kartid lacag badan adoo gurigaaga jooga waxaanu ka rabnaa maadaama dad badan ay kugu xiran yihiin in aad fursadahan ka faa'iideysatid waxaanu deegaamo iyo xurumo ku leenahay Afrika qaasatan Soomaaliya waxaanu doonaynaa inaan kugu casino ganacsigan fursadana adiga ayaan ku garanay walaashayna la soo xiriir halkan fartiin noogu soo dhaaf inta inuu iska baranaynana qoraalkeena ama fariimaha ina dhexmara qofna hala wadaagin waa qoraalka ay ii soo qortay gabar ayay ahayd kadib waxaan ku eray waan ku soo dhaweynayaa fursadda ganacsi ee heshadna waan ka qayb qaadanayaa soo dhawow walaashay tell me more إيش ganacsigaaga iyo waxa uu yahay anigu laftigaygu waa ganacsadaa yaa diidaya fursad ganacsi oo kaftana ayaan u qoray sheeko dheer ayaana dhex martay codadkeeda ayaa aan maqashin doonaa iyo iyada oo hadlaysa oo ganacsigeeda ii sharaxaysa koorintaana gabadha codkeeda iyo sheekadeeda ee maqashin iyo su'aalihiina dhex maray waxaan doonayaa wax yarina inay ka sheego dadkan waxa ay yihiin dadkan waa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen oo kala ah waliba waa dad u badan dumar Soomaaliyeed waa dad bulshada Soomaaliyeed dhexdooda jagooyin ka soo qabtay haddana ganacsato ka ah Soomaaliyana laga yaqaano laakiin shaar kale ay ganacsigan marka ay fulinayaan ama ay sameynayaan ay soo gashtaan waxay ku nool yihiin gabi ahaan Soomaaliya oo dhan meel walba ay ka joogaan dadka waxay ugu sheekeeyaan waxaan ka gadaynaa xubnaha jirkaaga waxaana ku siinaynaa lacag u dhaxaysa 100,000 ilaa iyo 50,000 oo dollar waxaadii aad caafimaad qabtid kalidaadu da'daada caafimaadkaaga ay ku xiran yahay qiimaha xubnaha jirkaaga laga siisanayo jirka xubnahaaga oo dhan ayaa loo baahan yahay gamcaha lugaha indhaha ilkaha beerka kaliyaha wadnaha iyo waliba dumarka jira 15 sano ilaa iyo 35 sano ilma lagu abuuranaya waxa laga saxiixayaa contract 2 sano ina ayaga la joogaysid inta cuniga aad ka dhalaysid lagu abuuraya hawshaas oo la qabanayo kadibna hadda marka cuniga aad dhashid shaqo kale ayaa laga qabanaya dadkan ganacsigan marka ay sameynayaan waa dad qarsoon weeye dad Soomaaliyo inaga kalena waay oo walaalaheena laakiin dadka ka dambeeya oo ganacsigan maalgeliya ama sameeya waa dad ajnabi ah oo caalamka ka imaaday laakiin Soomaaliya gudaheeda dad ka sameeya waa dad Soomaaliyo oo waliba dumar ah gabadhan waxay tiri oo hadaladeeda ayna maqashinaya kamida xubnaha jirka ayaanu iibinaa dadka waxaan ku soo qalnaa oo geynaa Ethiopia iyo Kenya laakiin taasi waa been xubnaha jirka waxa lagu soo qalaa badda dusheeda markab saaran ayaa lagu geynayaa oo Soomaaliya jooga hadba meel ayuu ku xirtaa markabkaas qofka marka la kaxeeyo deegaanada Soomaaliya tuulooyinka iyo gobolada iyo caasimadaha Soomaaliya iyo dadka laga ugaarsadaa ilmaha waa la xadaa gabdhaha yar waa la qaadaa wax kasta qofka waa la waayay waa dhintay ma ogid laakiin halkaas ayaa la geeyaa markabka dushiisa lagu qalaa qofka wixii la rabaa laga la baxaa kadibna badda ayaa lagu tuuraa sheekadan businesska ayaa jiro oo Soomaaliya ka socdo anigan in la hadlayo ay qofkaas ama dad kamid ah qofkaas ila soo xiriiray xiriirkiisa iyo sheekooyinkiisina sidan ayay noo dhaxmareen koorintaana gabadha codkeeda iyo sheekadeeda ee maqashin iyo su'aalihiina dhexmaray waxaan doonayaa wax yarina inay ka sheego dadkan waxa ay yihiin dadkan waa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen oo kala ah waliba waa dad u badan dumar Soomaaliyeed
waa dad bulshada Soomaaliyeed dhexdooda jagooyin ka soo qabtay haddana ganacsato ka ah Soomaaliyana laga yaqaano laakiin shaar kale ay ganacsigan marka ay fulinayaan ama ay sameynayaan ay soo gashtaan waxay ku nool yihiin gabi ahaan Soomaaliya oo dhan meel walba ay ka joogaan dadka waxay ugu sheekeeyaan waxaan ka gadaynaa xubnaha jirkaaga waxaan ku siinaynaa lacag u dhaxaysa 100,000 ilaa iyo 50,000 oo dollar waxaadii aad caafimaad qabtid kalidaadu da'daada caafimaadkaaga ay ku xiran yahay qiimaha xubnaha jirkaaga laga siisanayo jirka xubnahaaga oo dhan ayaa loo baahan yahay gamcaha lugaha indhaha ilkaha beerka kaliyaha wadnaha iyo waliba dumarka jira 15 sano ilaa iyo 35 sano ilma lagu abuuranaya waxa laga saxiixayaa contract 2 sano ina ayaga la joogaysid inta cuniga aad ka dhalaysid lagu abuuraya hawshaas oo la qabanayo kadibna hadda marka cuniga aad dhashid shaqo kale ayaa laga qabanaya dadkan ganacsigan marka ay sameynayaan waa dad qarsoon weeye dad Soomaaliyo inagoo kalena waaye oo walaalaheena laakiin dadka ka dambeeya oo ganacsigan maalgeliya ama sameeya waa dad ajnabi ah oo caalamka ka imaaday laakiin Soomaaliya gudaheeda dadka sameeya waa dad Soomaaliyo oo waliba dumar ah gabadhan waxay tiri oo hadaladeeda ayna maqashinaya kamida xubnaha jirka ayaanu iibinaa dadka waxaan ku soo qalnaa oo geynaa Ethiopia iyo Kenya laakiin taasi waa been xubnaha jirka waxa lagu soo qalaa badda dusheeda markab saaran ayaa lagu geynayaa oo Soomaaliya jooga hadba meel ayuu ku xirtaa markabkaas qofka marka la kaxeeyo deegaanada Soomaaliya tuulooyinka gobolada iyo caasimadaha Soomaaliya iyo dadka laga ugaarsadaa ilmaha waa la xadaa gabdhaha yar waa la qaadaa wax kasta qofkii waa la waayay waa dhintay ma ogid laakiin halkaas ayaa la geeyaa markabka dushiisa lagu qalaa qofka wixii la rabaa laga baxaa kadibna badda ayaa lagu tuuraa sheekadan businesska ayaa jiro oo Soomaaliya ka socdo anigan in la hadlayo ayo qofkaas ama dad kamid ah qofkaas ila soo xiriiray xiriirkiisa iyo sheekooyinkiisina sidan ayay noo dhaxmareen gabadhaas su'aalo badan ayaan weydiiyay markii u horeysay waxaan weydiiyay waxay ahayd dadka marka aad kaliyahooda ka saaraysiin ama qofka aad rabtiin inaad kali ka saartaan seebaad uga dhaadhicisiin dadka ma afduubtaan dadka ma maxbaad sunnaad siisaan qofka miyir doorisiin sidee baad uga dhaadhicisaan in qof kalidiisu uu ogaado inuu xubnihiisa gatood ka haysataan waxa ku soo sameeysan waxay iigu jawaabtay sidan dhageysta wacan abay maanta khasam maahan in qofka uu la charchumo ama la afduubto ama wax kale talubso qof walba isagoo mirkiisa iyo wax walba taamihin xubnihiisa laga gadanayaa wuxuu ku daboolayaa baahidiisa mid kasta ay taaba lacagtaas ku daboolaya marka abay dhimanahan waxaan wax caalamka ka jira wax soo jineena weligan baan ka soo shaqaysan jirnay aniga laftirkayga xitaa markii ugu horeysay kaliban iibsaday alxamdulillah hadda waxiga maqan ma jiro waan ku socdaa waan ku dhalaa alxamdulillah wixii aan u baahnaana waan helay way ii fududaadeen waxay tiri dadka ma joojnay tiri dadka waa caadi bay tiri wax soo jirina weeyay tiri oo weliga jiray waa wax caadi ay tiri oo laga ganacsado aniga laftaydu way tiri markii u horeysay kaliyeeda gatay qofka baahi badan iyo lacag la'aan iyo faqri badan haduu hayana uu uga baxayaa bay tiri oo baahidiisa ku daboolaya waan ku dhalaa waa socdaa waxba igama dhimana kalidina waan gatay ayay tiri mar kale ayay gabadhan waxaan weydiiyay su'aal kale oo ah xagee baad Soomaaliya ka joogtiin xagee xurumo ku leedihiin ayaan weydiiyay waxayna iigu jawaabtay sida tan abay maanta khasam maahan way ku soo tagay qofkii gobolada badan baan ku leenahay sida gobolada Puntland oo kale Somaliland oo kale in koonfur galbeed oo kale Jubbaland Soomaaliya waxaan ka wada alaashan Soomaaliya xataa wada federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay dibay baan ku leenahay waxaan ku leenahay adoo caalamka oo dhan oo ku leenahay sida Ethiopia meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adag noogu fududaadaan waa Ethiopia ilaa Nairobi oo kale soo dhaqaatiida caalamka waxa jooga khatar ah iyagoo kale badan operationada waa lagu galaa mataqaan laga yaabo in Soomaaliya dib ku tahay ama dadka ku ogaadaan oo kale meelo badan waa yaabaayo laakiin ani markii ugu horeysay waxaan ka soo bilaabay Jarmalka sifa baa uma qashana u maleynaya waxay tiri gabadhan waxaan xurumo ku leenahay tiri Puntland Soomaaliya oo dhan bay tiri Somaliland Jubbaland
koonfur galbeed muqdisho centralka ah meelo badan oo xormo ku leenahay dadka meelaha noogu dhow oo kasoo qalnana bay tiri waa Ethiopia iyo Kenya bay tiri aniguna markii ugu horeysay shaqada waxaan kasoo bilaabay tiri Jarmalka waa kaas ahade su'aalo badan ayaa gabadhana dhex maray oo aad u fara badan wax kasta waan weydiiyay marka waxaan rabaa inaan uga digo ummadda Soomaaliyeed ee video-ga gaari doono hadii lahayd ma adeegsatidna waxaan ka codsanayaa inaad share garaysid in waxabahan oo kale la isaga digo in lagugu dhaho baahi baa ku haysa maanta faqri baa tahay waxba ma haysatid gaaja ku haysa si aad faqriga iyo dhibaatada uga baxadid xubnaha jirkaaga gado lacagaan ku siino garanti ma ahan baahi kuma geyn karto inaad jirkaaga gadatid ha ku dhiiranin maxaa yeelay qasab ma aha Ethiopia iyo Soomaaliya mid dadka lama geeyo Kenya dadka badda markab dushiisa saaran ayaa lagu qalaa xubnaha ee jirka lagala baxaa kadibna baddaas ayaa lagu darayaa haday xitaa dhaqaatiir ku qasho oo Ethiopia iyo Soomaaliya Kenya ma kasta lagu soo qolayo Jarmalkaba mar walba meedkaagii waa la tuuraya qashinka lagu daraa biyaha la raacinaya qof kasta oo Soomaaliyeed video-ga gaaro waxaan ka codsanayaa inuu share gareeyo waxyaabaha noocan oo kale ah isaga digno hadii social media laga la soo xiriiro oo lagu yiraahdo waxaan dad noocaas ganacsi baan ku haynaa fursad ganacsi maalgelin baan ku siinayna dadka gaarsii warkeena xubnaha gateen dadku waxyaabaha nagala shaqee waliga hayeelin dambi waxa way aad u weyn xubno bilaadan ka ganacsatay raqadaadna ay gasho oo qof bilaadan nafsadiisa adigu gacantaada ku dashay dadkan waa gacan ku dhiglayaal way dadka dhiigoodi bay caadaysteen dadkii baro inay baabi'iyaan meelaha ugu badan oo laga waasoo dawladda ka jirnin oo dadkii lagu dhibaateenay waa Soomaaliya ilmihii baa la weynaya gabdhihii baa la waayay wiilashii baa la waayay dad badan baa ubadkoodi meel maanta jira aan garanaynin hooyooyin badan baa meel jaani cirib dhigan aan la garanaynin waxaan ka codsanayaa qof walba oo video-ga gaaro inuu si share gareeyo hadii waxyaabahan oo kale social media lagu yimaado oo social media laga weydiiyo oo social media lagu soo xiriiro oo waxaan oo kale lagu soo bandhigo hadaa hadii lagu dhaw maantiba joogaago dahaba $1 million lagu siinaya waxaan oo kale ha qaadaneen waa wax aad u xun weeyaan وانا wax wadankeena baabiyo umada Soomaaliyeed ku jirna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka soo hanuuniyo ku jirna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka saaro wax caadi ay kaaga dhigayaan waa caadi wax soo jiray adduunka dhan bay ka jirtaa ana sameeyay anaga sameeynay dad badan baa sameeyay been weeyaan maalinka lagu ku haysto oo lagu qaato sida rabaa laga yeeliyaan naftaada dambe iyo adiga lagu ma arkay xubnahaagana waa la baxaya inta un bay doonayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa dadka ha ka qabto annagana ha naga qabto video-ga Arabina in la wadaago umada Soomaaliyeed aan la wadaago waxaan waxa la iga sheekiyo maaha waa aniga dadka ila xiriireen kadib markaan isdee dhibaato badan dhex martay su'aalo badan weydiin aniga dhan waa lay bloogay awalba Snapchat ka wada hadalnay way diideynay WhatsApp-ga la xiriirto way diideynay telefoon isii meel aan kula soo xiriiro waayo su'aalahayga ayaa iyadana waxay galiyeen shaki iyo tuhun ah maxay waxaan rabtaa inuu ogaato waayo waxa soo dhan ina shaki ay dareentay aniga qof waxaan ku wixii qarsan karin hadana qof isla markiiba fahmi karta meesha dhibku ka jiro ayaan alxamdulillah ilaahay aqli maskax u nasiiyaan wax ku kala garano isla markaas uu isaka xirtay wax kasta inay ii ogolaatana weydiida laakiin social media ay ka dhex qaraabtaan oo qodadka ay la xiriiraan waliba waxay kugu deeyaan inay wax walba ka raadiceen wax caadi ah kaaga dhigaan lacago iyo maal adduuna ku jeclaysiiyaan alla iska ilaalisho hadii Ilaahay yiraahdo video-ga si share gareey gaarsiin walaalaha kala Soomaaliyeed aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh